كل كابن للحماية السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعنا وناكسن داودايال meel kasta dunida daafiyada ka joogtaan waa mar kale iyo clip cusub iyo walaashin hodan oo idin kusoo dhawaada kanaalkeena hodan fashion kanal. waxaan leeyahay asxaabteeda qaaliga subscribe saar kambaleelkana furo si aad nooga mid noqoto qofka u horeeya daawada waxaan u soo dhignay aad baad ugu mahadsan tahay. inta markaynu kaga nimaadno halka waxaan rabaa caawa inaan la qaybsado barnaamij maxay dumarku u niyad jabaan oo ay iskugu dhiibaan nolosha ama ay hadduu qof ka tago ay qofkii u sii eegaan oo nolosha ugu sii mashquulaan. barnaamijka san caawa wadaa inaan inoo daadihinaya waxa daadihinayna laba hablood. marka insha Allah hablahaasaynu garaaci doonaa insha Allah iyaguna fikirkooda ka dhiiban doonaan annakaygan ka dhiiban doonaa haddii Ilaahay awoodda la noo qadaro. iyo jabaan ay nolosha iskugu dhiibaan ama ay nolosha hadday guul daraystaan guul darrada u qaataan baan leenahay. waxaanu qaban doonaa lambarka insha Allah bal weyn weydiin doonaa hablaheena insha Allah bidnillaahi kariim. waxaan leeyahay kanalkan waa kanalkiini kusoo dhawaada kanalkiina subscribe ta saara kambaleelkana furta si aad mar walba nooga mid noqotiin aad baad ugu mahadsan tihiin. bal insha Allah barnaamijka qodobadaas aynu taaban doonaa bal qodobada aynu kala saari doonaa aynu kala googoyn doonaa insha Allah bidnillaahi kariim. aynu midba halkii loogu tala galay amba halkii ku haboonayd aynu dhigi doonaa haddii Ilaahay awoodda la inoo qadaro. waxaan leenahay kusoo dhawaad baajay khadka si fiican ma noo maqlaysaa walaalo si fiican ma ku maqlay baajay xasan daahire. marka waxaan ku leeyahay baajay maxaa sababa inay dumarku markiiba isku dhiibaan oo nolosha ay guul darrada u qaataan ama ay qofkii markuu ka tago ay ugu sii mashquulaan ama ay u sii eegaan muxuu qofkan iiga tagay ama ay ugu sii noloshooda ugu sii xasan daahire ayaan oran karnaa oo keenay oo koosgareeyay inay maanta gabadhi hadduu ninka ka tago siduu uga danaystaanba uu uga tagay ama uu calafbaha kala kaxeeyee. maxaa sababay inay u garan weydo inuu calaf kala kaxeeyay calafna markii hore isku keenay imakana nolosheeda ay usii wadan weydaa ee sababa inay markiiba nolosha uga dhacdo ama ay nolosha ugu guul daraysato. bal qodobadaas inoo yaro kala qadqaado baajay inooga falanqood. marka hore assalaamu calaykum adiga asxaabtaada qaaliga baan idin salaamaya. marka hore aad baan kaaga qaadnay walaalo qaali walaalo qurxee. marka hore maxay dadkan waa qof bilaadan oo shakhsiyeed calaf isku keenay صح maxay qofkan bilaadanka aan inuu wanaagsanaan karo inuu xumaan karo labadaba ka filo طبعا وارن hore loo yiri guurku waa god gacanta la gelinayo madowdiina maskaaqan inuu doonayn karna Ilaahay ma ogid وارن marka mar walba guur iyo guul darro labadaba inaad ku tashataa way fiican tahay. طبعا وارن marka hore noloshaada adigu wada maxay ahayd marka hore hadaf bay lahayd adigu himil aad lahayd adigu wada qof bilaadan oo marka hore hawlihiisa wataad ahayd oo qofna isku maad xidhay وارن kii maxay ahayd dumar hadana markii la guursado qofna isku xidhnaa طبعا وارن oo qofkii isku xidhnaa deynay inagu leenahay markaas qofka bilaadanka qofkan buu wada siinaya waxa dhibaatada inoo keenta qof marsi wada siin hadhow toolana maxay qofkan bilaadanka uu xumaan karaayo de maxay ahayd waa bashar طبعا وارن markuu xumaado meel aad iska soo qabataa ma haysati walaalo وارن bilaadanka aad siisayba صح hadna maxay ahayd meel aad iska soo qabatay ma laha noloshaadina way baaba'aysaa oo dhulka gelaysa صح marka intaan noloshaada dhulka gelin aan baanad baabin weyna niyadaada ka dhaadhicisaa qofkan waa qof bilaadan adigoo kala exactly وارن adigu bataada wad wadatay qof kastaba maxay idinku ixtiraamkii iyo wanaagii iyo wax walba isku haya oo laba qof maxay wada nool hadana mar walba inaad qofka hadafka leh lagu arko inaad qofka ismuujinayo marka marka bilaadanka haddaad isku xumaataan tii Ilaahay wax walba Ilaahay baa qoray وارن inaanad xaggaaga dambe eegna mar walba inaad hooyo fiican oo caruurteeda hormoodu ah oo hore u socoto qof adag leh inaad ahaato inaad ahaato aad iyo aad u muhiim tahay. طبعا وارن aad muhiim tahay tiraado qof baad ku dhaganaatay tiraado maxay qofkaas say oran jiray qofkaas say sameeyay mar walba aad isliidid maxay noloshaada adigu dab ka dhigtid nus ka dhigtid noloshaada qof dhan uu ku xiriirsan tiraado waxa ma qabsan karo qofkaas waxay qaban jirtay وأيان ضرر ما هو أنا دي المهاجة iyo noloshaada iyo meel walba waxaan ku horumarkaaga sameystay ilmahaaga adeeyo waxaan ku rino bil aadan Ilaahay keenayba inaan u baahan weeyna adigu mar walba soo
taagnaatay u garab taagnaatay qof nool ahaa walaal dabcan waa run iska ahaatid maxay hayday qof aadana tiraadadu qofkaas saasa adigaaba inaad ku tahay banayeen dulliyo waxba cidna cid kama naxayso qof kastaba inuu tiisa wataa waa run dabcan dhiirigelintuna waa shay muhiim ah in la isdhiirigeliyo anigu inaad maanta inaad qodobka ka hadashana aad iyo aad baan walaal kugu soo dhaweynaya hodanay aad baan ka aad walaal ugu mahadsantahay xasan daahirey waa run oo walaal waxa jirta in yar oo waxa jirta wax ma garataa dumarkeenu ma wada xuma laakiin waxa jirta in yar oo wax ma garataa oo aan garanaynin wixii ay adduunka u timiday haddii ma ogtahay haddaad maanta qof iska darajada taaganta aad qof haddaad ku mashquulshid darajada taaganta inaad ka hooseysid oo maanta qofkaas iska darajo sareeyo waayo qof bili aadana ayaad hankaagii iyo darajadii noloshaada iyo wixii aad adduunka u timiday aad ku lumisay oo isaga uun qadarisay isaga uun darajadii uu lahaa ayaad hawada geysay taadina dhulka ayaad geysay marka waxaan dumar oo idinkula talin lahaa ama aan idinkugu soo gudbin lahaa halkan haddaad iga dhegaysanaysaan iyo haddii kaleba anigu ma si interest garaynayo laakiin muhiimka waxa weeyaan inaan runta iyo xaqiiqada aynaan ka leexan oo aad ogaataan inuu maanta qofkan sagaalkaad ku dhalatay uu ku dhashay maanta wax aad maanta uga baahantay inaanay jirin oo tahay qof isbixin kara ma diidin inaad kala tagtaan calaf baa jira ma diidin inaad wada joogtaan calaf baa jooga markaana laakiin haddii aad kala tagtaan oo noloshiini kala dhammaataan waxa muhiima oo qodobka lagama maarmaankii uu yahay inaad noqotid hooyo isku filan oo adag oo dhammaystiran dhinac walba hadday noqoto ilmahaadii inay iyadu kafayso inaad hooyo dhammaystiran oo kumbleeda noqotid horta adduunka wax dhammaystiran ma jiraan oo dunidu waa 99 baa la dhahaa oo ma 100 ma noqoto laakiin haddana haddaad 99 buuxisid aad wax walba tiraahdo waan qaban karaa dadaal xaj cabaas waan u gaadhaa bay dhahaan Soomaalideenu waan u dhaafaa oo maanta dad dadaal la timaadid wad gaadhi salka doonaysid ina xasan Soomaa aad iyo aad walaalo oo maxay haday noloshaada adduunka quraankaaba lagu sheegaa adoo kaliya adduunkan timid adoo kaliyana waad dhimanaysaa waa run dadkeena waxaas kama dhaadhacsana dadkan waxaad moodaa inay badi ma wadaaha laakiin midmid waxaad moodaa inay aqoontu aad ugu yar tahay waayo marka hore haddaad tahay hooyo qurbo horta imaka inaga halkaynu ka hadlaynaa dadka horta ha fahmaan maaha wadankii hooyo walba isku filan tahay xataa tay wax ka yara jajaban yihiin hooyadeed baa kabaysa oo wadankii waalidkii iyo familygii baa ku kabaya laakiin halkan qurbaha hooyo ku kabaysa ma joogto aabo ku kabaya ma joogo maanta halkii ka qalloocda ama uu qofku kugu qaldamo ka qabanaya ma joogo laakiin waa nin iyo xabaashi loo kala tag bay weeyaan Yurub taa weeyaan hadad ku maqli jirtay nin iyo xabaashi loo kala tag wadankii qofka markuu dhinto ma jirto hal mar walba inay waxa la dhaafiyaan meel lagu ilaayahay dadka insha Allah iska tuura ma faahid waa dabcan nolosha maxay dadka way bedeshaa wadankii maxay meel waxaan joognay xitaa hooyooyinku laga yaabo inay odayaashoodii iska jijiifay kabayeen dabcan waa run laakiin maxay hayday ninka iyo naagta isqaba waxay u dhaqmayaan sidii laba qof oo cadowood maxay hayday ninkan isku mahalaynta bini'aadankii tooskeeda wada tahay oo waqtigeedana inaad aragtay ka soo horeysan ilmeego soo kaxaysataa hadduu ka soo horeeyo soo kaxaystaa qof kastaaba hawshiisu wataa lacagtiisa iyo shaqadiisa iyo horumarkiisa iyo mustaqbalkiisa ka fikiraa sax hadduu ka tagana maba interest garayso waa qof dhan oo ku tiirsanayd صح laakiin inagu Soomaali hadaynu mar walba meel kastaynu tagno waxaynu la soo galnaa dhaqankeena صح maxay haday gaaladaas hadii ka yeelayso naaga badan baa daragooga oran iska chief ku dul shaqayn lahaa طبعا ها laakiin ma wayna dhacayn basoma waana dhacayn waayo imika waxaad isweydiisaa maanta adduunkan dhan muxuu rabbi kuu keenay waa inaad marka hore isweydiisaa dad taa isweydiisid waad ogaanaysaa qofkan qiimaha aad u leedahay qofkan qiimaha uu ku taagan yahay maanta qofkan wuxuu ku qiimeynaya ama uu ku qadarinaya marka aad adigu qiimaha aad leedahay aad muujisid aad adduunka soo bandhigteed tustid wax laakiin haddaad noqoto qof busta ku dadan bustahaas qoyan un baa biyo lagugu sushubi wuu sii raday un aakhir marka dambe waxaad ku qoomama iyo waxaad shanlayn umad ku dhiman laakiin marka hore aanad xataa qofka guursan waa inaad marka hore ogaataa inaad adigu darajo leedahay adigu naftaadani ay darajo leedahay dumarkeena waxa ka maqan qofkan iyo adiga inaad adigu iyo naftiisa iyo naftaadu ay siman yihiin oo aad leedahay darajo sinaantu ma hatii xagga rabbi ee boqolkii kontonka kala ahayd taa rabbi xigmad ku soo degtay weeyaan dumarkana konton laga dhigay ragana boqol laga dhigay
laakiin maxay ahayd ilaahay qof kastaba karaamu siiyo qof ها kastaba كرامو سي oo karaama qof walba karaamu ilaahay siiyo oo maanta qofkan darajadu leeyahay hadaad maanta darajada leedahay hadaad qofkan ku mashquushid oo maanta qofkan gidiga maanta tiraahid muxuu Facebook oo idinkoo kale tagay Facebook muxuu soo dhigay muxuu social media soo dhigay oo noqotid qof ooyay aan waxaan oran lahaa ko hadaad maanta doonaysid nolosha guul ka gaadhid qof hadaad kala tagtaan ha iskaga dhigin inaad adigu u baahan tahay ama aad adigu u hooseyso waxaad iska dhigtaa qof iyadu kaligeed wax qabsan karta ama kaligeed wax noqon karta laakiin haddaan maanta oo dhan ku mashquushid inaad muxuu yiriyo muxuu halkan ka yiriyo asxaabtiisa ku mashquuliyo maanta oo dhan wuxuu media soo dhigay eegiyo kolba yaraqish wallahi qof adduunka ugu hooseeya noqonaysa wax ku eegayana ma jirto qof wax ka soo saarayana ma jirto qof walbana darajada uu isgaarsiiyo ayuunbuu dunida ku leeyahay sumcad laakiin sumcadaada iyo sharaftaadu waxay ku jirtaa inaad adigu darajada rabbi kugu xigmaday ama rabbi kuu abuuray inaad darajadaadii isgaarsiisid mid ka badan mooye mid ka hooseysa inaanad isdhigin aan anigu kula talin lahaa barnaamijku wuu dheeraaday waxaan guntiga gabagabadii baynu joognaa barnaamijka waxaan insha Allah aynu kusoo koobi hooyooyinka caruurta layna caruurtooda hadaf caruurtooda waxa u yihiin miyaarad ay iska dhex daawadaan caruurtooda hadday mar walba arkaan hooyadooda daciifo jilicsan iyaguna caruurta niyada kama korayaan laakiin mar walba waxa tustaa caruurtaada inaad adigu qof caadiyatooda wax u qaban kartid qof karti la tahay oo 2 nin iyo 5 nin baa u dhigmato laakiin haddaad hoos isku rido ilmahaaguna hadhowna niyada kama noolaanay qeyrku xigiina uu hoos maraya laakiin mar kasta ku arko hooyadii oo wax wada hooyadii wax qabsanayso hooyadii isagana niyada ka dhismayso hadhow toole markuu weynaado mar walba wuxuu doonayaa inuu gaadho halkaad maraysay iyo heer ka sarreysa laakiin mar walba hooyadii kala dhacsan ilmahan waa yaarad qalbigiisa oo yaarad hadhow maxay baaba uu noqonayaa dumarka caruurta la ee caruurta kaligood korsanay waxa uu sheegay in mar walba maxay ahayd tusaan kartidu ilaahay si qof kasto bila aadan uu karaamaysan laakiin qofka karaamada haddaad iska qaado waxba ma tiido xoo maxamed aanti dabcan waaran laakiin uu iskaraameeya heer isgaarsiiyo caruurtiina hadaf iyo himilo maxay ahayd tusa oo ha ku arkaan caruurtaadina hooyo adag oo meel walba gasha oo meel walba ka midha keentay inaad tahay hooyo marnaba asagin ilaahayna nala garab qabtay inuu badka inoo koriyo aamin walaal ilaahay walaadahay inoo koriyo ilaahay nala garab qabto waxaan leeyahay guntiga gabagabadii waxaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka waxay la qayb qaadanaysaa Baaji Xasan Daahir iyo anigoo ah Hodan Cabdiraxmaan waxaan leeyahay barnaamijkan intaan midxiga ku kulmi doono kale barnaamijkan uu socon doonaa insha Allah giba hal maalin baan kasoo gelin doonaa insha Allah oo kusoo dari doona barnaamijkan waxaan leeyahay intaan kan midxiga ku kulmi doono السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أدبر ندي السلام يا أصحابتي دقالقة كل كاد نلول حمايو